makers iyagaa sharciga qora soo maaha yaa marka badankooduna waa niman very ambitious oo waxay rabaan sameeya fahanteen oo mar waxaa la yidhaha looyerinta waxaa loo yaqaanaa the devil's advocate baa loo yaqaanaa nimankii shaydaanka u dooday ma fahanteen oo waxay ka timid character ama book la yidhaaho anyways intaasi waa in yaroo kooban oo ku saabsan suurat albaqara berit walan sii wadaya sheekooyinka ku saabsan nebiyada iyo qisaasada suurat albaqara but waxaan rabaa inaan ku daro in yaro xalay toole markaan soo dhigay videoga waxaan idhi buugga adduunka ugu caansana most popular book ya waa buuggan bibleka soo maaha ya buuggaasina waa buugag badan oo laysku keenay ya 5 buug bay dhahaan laakiin 5 buug baa lagu soo koobayaa imika buugagan ingiriisiga laakiin waxa weeye 66 buug baa yar laga soo wada qaaday laakiin buugga ugu caansan oo de buugaga laysku wada keenayo bibleka noqon doono waxa weeye buuggan idhahan Genesis ya waa buuggan ku saabsan the origin story sheekadii Xawi Aadam Xawi Aadam suurat albaqara waxay ku micnaynaysaa waxay uga soo baxeen jannada taasi waa the origin story soo maaha waa siday waxa kalifay inay jannada ka soo baxaan ya geedka mirihiisa cunin baa lagu yidhi geedka mirihiisii bay cuneen taasay jannada uga soo baxeen ya de mirahaasina waa maxay mirahaasi waa mirihii good and evil la yidhaaho waa mirihii ha isku taabanin xaaraanta ha cunin ya waxaan adiga ku anfacayn oo ku fiicnayn oo ku halaagaya samaynin wixii baa la sameeyay markaasay is arkeen inay qaawan yihiin literally maaha dhar bilaa dhar bay ahaayeen idinku waxaasaad ku mashquulsheen wallahi billahi dhar baad ku mashquulsheen ya no wonder waxa Soomaali maryoole loogu bixiyay waa dhar waa dad maskaxiyan qaawan intellectually qaawan but dharkan ay isku dadayaan bay mudayaan inay is asturayaan no ceebtaadu waa markaad u fiirsatay dhulkaadii dadkaadii siday yihiin especially ceebtu waxay raacaysaa nimanka moogtahay waa nimankii loo baahan yahay inay protectors noqdaan inay dhulkooda ilaaliyaan inay haweenkooda ilaaliyaan inay iimaankooda iyo sharaftooda ilaaliyaan ya niman qumanoo toosan inay yihiin oo wadankooda ilaaliyaan oo nin kastoo kusoo xadgudba ay ka ilaaliyaan ama dadka loo kusoo duula laakiin nimankiiba hadday qaawan yihiin ya naagihiina waxay isleeyihiin de marooyinka isku badiya ya oo at least wax astura de maskixiyan iyo intellectual hadii laga qaawanyo adduunka ku arkayana ceeb soo maa waa ceebtii adduunka ugu weyneyd wallahi billahi sometimes waaban khajilaa markaan just u fiirsado sida leeyahay ya waxaa wallahi dadkan ilaahayow ha iska wada dhintaan because ceebtani was too much ya weli lasoo indha adag yahay oo meel kasta lasoo fadhiisanayo oo la iska dhigayo awliyo iyo dad quman oo toosan oo saxsan ya so intaasi waa intaan rabay inaan ku daro sheeko kale aan usoo dhigayaa video ku xigta oo ku saabsan khamsa fiska ama gacanta de fiska iyo maxaa la yidhaahaa concept la idhaaho the Faustian contract waa waxaa noqon doonta deal with the devil ya qofkani contract buu shaydaanka la saxeexday oo waxay garaysaa arrimahan lawyernimada iyo attorney iyo de lawga oo nimankan de attorneyga iyo lawmakers de iyagaa sharciga qora soo maaha ya marka badankooduna waa niman very ambitious oo waxay rabaan sameeya fahanteen oo mar waxaa la yidhaha looyerinta waxaa loo yaqaanaa the devil's advocate baa loo yaqaanaa nimankii shaydaanka u dooday ma fahanteen oo waxay ka timid character ama book la yidhaaho the Faustian may ahayd ya the Faustian contract in yar baan taasna idin yar macnaynaya ya waa idin salaamay